adiga iyo Omar wali mis qabtaan maya goorma isfurtay adiga Omar 14 sano ka hor baa isfurno 2009 ka isfur kala tagnay 14 sano ka hor isfurtay adiga Omar Kampala ka soo dhoofiyay isku qabna halkaas cunuga hadda cunuga u dhashwaagi ma jarmal ku jooga mise Kampala jooga mise Zambia geesin Zambia jooga ana Zambia kansada Zambia jooga hadda yaa haya cunuga habaryartay baa hayso adii habartaa ku haysa هذا ما يقتلوا النقضي أفرق 8 سنة جرا أورم ده مكود دجنا يدق هلاش عمر على وشر قريب عمر على وشر قريب وأرون مركز سواقة سو أربطة أفرت وسجل نقري هذا حساب لا بدو كوني سجال كندلة ولقيسنا كشرين مسين ولقيس كشرين مسين $1 ولقيس مسين السجا ولا فاهم الكيسة تقطع ولقيس وعنق واقص على شيء ولقيس عمر حسين $1 ولقيس مسين حتى أبي ولقيس مدين انتو واعي تقطع ولقيس مكين دكسو ولقيس كما بحين سكول ولقيس كما بحين ولقيس إيد قدن در ولقيس أموس قدن فهمت حتى العقد كو غدي نينا شكان سدان ka qaaday quraanka maanta uu dhameeyay waa 14 sano jir I don't know maybe ka shakisan yahay inuu cadeeyaan rabaa markaa ku faanaay kama shakisanay uu ku faanayo aniga waxa maqlay wiil iyo gabar buleeyahay horto gabar uu Canada ku dhalaa jirto gabadhaas reerka waxa la dhahay hay'ad waxaan oo la iska bixiyo maxaa la dhahaa fidrada lagama bixisho laakiin wiilka waa laga bixiyaa minis way tirsadaan laakiin aab xataa weligiis ma soo dhihin lama xiriyo fidrada ka bixiyaa uu sheegay wiilkiisa hadda goor xataa wiil oo hadda la ka wacaya inuu igu yiri yaa ilaahay yaqaan oo rasuulkiisa yaqaan warniyaha dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ka qadan war macnaa waalan dadku waa waalan yihiin وريا مسلم هو إلهي يقانا قبر هذا ساسو كلا أو نيجا بروبايلر قلي أنا هذا قدر لعك حريق حتو قدره بل أنا هم قبل أسواس لقانا سام بيأسر شوك جرنا أبتي يقول أتيا نيجا بروبايلر نعيم قودي هبين هرسار نيت ها نعيم نيجا قوم يا نيجا قبل شنطة عنك قاعدني أعملني Zambia isla joogna ani Zambia ka imid haye garanaya marka aniga reer mahad baa reer abtay iyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maxkamadda waa waalatay shaashada balgaraac midig waxay shaashada ina waligiis wax ma siin Omar inugiisa waligiis waxa ma siin lacagta lagu gudaan ku dhahay nina shukaan sadan ka qaaday marka muxuu dadka caawin oo marka ninka asoo caawinaya ma arkay waa la yaabaa markaas wiilkiisa caawin u baahan hada 3 bilood baa lagu leeyahay Omar gabadhii Maxamuud cunuga ku dhashay ila joogtay soo carab caaw ceeba dhacday war bal caaw buuq Omar waa adeeg maxkamadda waa waalatay soo carab ninka dhale fanaanka ah ee habeen kasta wax nala caawiya cunugiisi waa baahan yahay wax badan baa ku raadinaya laakiin waxa soo qabtaan waay markasta waa soo koraa meeshaada markasta waa ku daawadaa marka ilada jirto marka waa ogaadaan hadda ogaado marka aniga marka leeyahay ragga Soomaaliyeed waa dayacayaal waa ila dagaalaysin qaarkiin marka leeyahay balbada asmo wax si waay waa ila dagaalaysin provider asmo gabadhiisa asmo والله بلا طلع حريق قحوتي وجهتا إنا كنسدان ربي لما سنة كهرب باسبورك سفارة مركا أو قدر بي وحالي لها أبيس كوبي كيسكين ونا إيدي دا كوبي كيسين محو كيد أنا مرة وإنا باسبورك كوبي كيسبحي ويردد عدو بدن بان هاي أنا هاي مقصية باسبور كوبي دا أيوه
إلا يصدق يا markuu noo diiday waaba tii laga jeexjeexay inkaartayda ku dhacday oo faat إلا يصدق يا markuu noo diiday waaba tii laga jeexjeexay inkaartayda ku dhacday oo faat واحد قال لك ورطة marka hadda baasaboor waa u sameeyay laakiin baasaboorka xuntiya u sameeyay هاي waa keensanaya cunugayga laakiin aniga lacagna ma rabo in lacag lay aruuriyana ma rabo just waxaa rabaa ninkaas inuu warcad meeshaas ka sheegaa rabaa ما هو قصة قصبين تفوق قصبين uu sheego wuxuu cunugiis u abadad gareeyay ما تقدر أو ما روح السبي قبل له آمنه والله waa jogtooga waa joogaa waa la socda آمنه سيو أوينيس أنت مذوبات reerahooda ay soo caayo waxay dhaheen wiilka iyaga baad kama seersantaa camal weli waad jeceshaha ka fog wax saasa anna waxaan dhahay haddaan u baahanahay shalito iskama furin baan ku dhahay anaa iska furay soo kambaaro jooga marka sababihii aan shalay iskaga furay oon isku iri kan haddaan maanta 5 u dhashay beri waa tuugsanaysaa maanta weli way jirtaa wiilkiisa waxaa ma siisanayo صباح سيفرت معايا بدك عشان مناك بكره بوسدي maya qeyri mas-uulnimo qof haddii aabbaha waxaa la rabaa inuu mas-uuliyadda ogyahay soomaali keliya mas-uuliyad ma qaadi karo taas waa iskaga furay اوكي مركو جو كان بعرو هو شيء عمر واقص عندك wallaahi ma garanayo markaas midhaama markaa kasoo tego waashta anugu markiiba waa ka tegay intaan waraaqdayda ka qaatay cunugayga 28 beri jira baan ka tegay kambaala هاي deetan iyo tiina dibna uma soo fiirin cunugayga hooyaday baa haysay gaalka ayuu ku koray kadibna anaa soo kaxaystay Zambia la imid cunugu wuu kora laakiin de way sheeganayaan laakiin waa inay wax u qabtaan quraanka waa dhameeyay 2 jeer buu quraanka dhameeyay fasalka 8aad buu ku jiraa ani kaliya intaa ma wadi karo in ma kalana haystaa ابي لك والد يا سي سوما abis waa la dilahaa لا قلب الدرا sababihii loo soo dhoofiyeyba waa la waxaastaa saa ka mid ah waa la dilahaa aana loo لا قلب الدرا reer qalafaa dilahaa markaasa waxa la inaha abihi u aarin ayaa loo soo dhoofiyey waagi saas wey xaas ha igu furide ما waxaan ka hadlaynaa haddii la dacwo haddii macnaha waxa sameeyaa laga dacwanaya wuu yaraa markaas wuu yaraa marka qoribu qaatay sidaasoo loo soo kaxeeyey kenya la keenay kadibna kambaala la geeyey waxaa loo furay dacwad marka hadda aabihii waa inta looga dacwo marka dacwad maba rabo reerkooda haddii ay asaga naga qaban lahaayeen intaasoo sano haddii ay wax siinayaan ama ninkan ay la hadlayaan laakiin reerkooda xataa way caayaan goortay wax yani waxaan u siismaba kama rabo laakiin de inay isabood garayaan bay xataa ayadoo hadal wanaagsan igula hadlaan marka waxaan doonayaa keliya cunugayga inuu dhalay iyo inuusan dhalin inuu halkan ka caddeeyo that's it ما wiilkii oo loogu faanaa wiilkii uu sheegaa mar walba ma uu ka shakisan yahay umaleyna soo u sheegtay because ilma aad dhashay waa ina uun maalin uun xataa naxariis ku ana soo dagaalsan macnaha adiga asaga dagaal xeeyo kala tirmiya may markaas waa yaryareen aad baa u yaraa anigana asagana wuu yaraa laakiin de haddii la weynaaday waxaa la rabaa inay isbedelo soo maaha haye isbedel ilaa hadda kama arko war aabba keliya dheh baa ka waaya aniga xataa wax anaa biilo oo iskuulkiis ka bixiyo iidoo kale u dira hadday lacagtii igu go'doo kale oo iskuulka habarartay baa iga bixisa war bal qolka sheergaray oo maanu sheergaray ama live ku jira soo fiiriya war bal Omar ii raadiya war Omar barbar ii raadiya aniniyo hadaa gabadha oo wacdaan oo aamino oo gabadha oo holan ku guursaday kasaas ku dhaha wiilkayga lacag u diraa wax gabadha waxay tahay wiilkiis waa u shaxshax gabar kale soo u shaxshax annaga weligii Omar ilmihiisa amkiin xataa ma xiriirin wax kasta way dhici kara laakiin Omar cunuga biilay wax barashiis ka warqabin fiir sharahan horta biilku wuxuu imaanayaa qofka markaa la xiriirtid soo maaha oo aad xiriirsiin xataa lama xiriiro aabbe weligiis ma dhihinaan ku dhahay intuu wacay والله أنا وحياها أنا قاعد إن الرمدوجة أي عنق ودله إبكي حلقة عنق وكذا علي أيو سبيلني
أنا يا مرة أحسن مركز وحلا يابلو وأنتاس لكن أنا واحد قصدها ويلكي ويكوري أساس وأداء كل شيء جاية وحاس asagaa kursaday marka hadduu u koray isna asagaa kursaday anaa kusoo dhintay intaa kusoo rafaaday ragga markay gabdhaha furaan inta badan ilmahan waa la furaan moogta burbulaan ku jiro laakiin isaga hadduu caaya muxuu qof caawinaya Omar hadduu sucunugiisa caawinin how dadku iska gadgadaya dadku istutusaya marka hadda maxkamadda caawa waxaa leedahay isaga socotay ay maxkamadda u wareegaysay ay maxkamadda hadba qof la soo qabanay caawa Omar ay fuushay maxkamadda ana qofka maqnaanaysa male maxkamadda way la soo kala horeeyaa maahane warhoy ragow ma iska hagaajisa warhoy ragow baashaan ceeb bay ku dhammaanaysaa warrag uma waxa intaan baashaan lidinkiin meeshaan lidinkiin ma hawshiina xalisataa saynin fanaan Soomaaliyeed oo caana oo intaasoo bulsho ay ku xiran tahay caawa cunugiisa la leeyahay iskuul kama dhiibin lacagta lagu gudaayana waxay tiri cunugiisa waa Omar Baba cunugiisa lacagta lagu gudaa waxay tiri ninaa shukaansa uga qaada soo saabadeen aad iyo aad nin adiga shukaansato kaadida ku dhigtay weliba kaadida inta ku dhigtay oo isbitaal la dhigay baa $100 wiilan shukaansanaya iga diray